السلام عليكم دمار الصوماليات وسلامتين ومعنا داير ديكشنري كسو دواada cashirkii labaad ee koorsada Englishga Shawel School Online idinku talagashay ciwaanka cashirka maanta aan qaadanayno waxaa loo yaqaanaa American Movie Idioms hadalada sirbeebka ah oo filimada Mareykanka la adeegsado maadaama hadaladaas ay wada badan yihiin ardada aan fahmaynin marka ay daawanayaan aflaanta Mareykanka oo kale sababta haddaan ka faa'iideysto fursadan sababta loo fahmi waayay ardada inta badan waxay tahay idioms ay adeegsadaan dadkaas 95% marka idiomskaas inta badan classeska normal classeska laguma qaato marka insha Allah maanta waxaan qaadan doonaa 20 jumlad oo idiom ah sirbeeb ah oo loo adeegsado American movies marka iska aqri exercise ayaan raacin doonaa insha Allah xalay exercise si fiican ugu soo shaqeysaan ardada qaarna waxaan ku boorinayaa inay ku daysadaan maadaama aan ka faa'iideysanayno insha Allah waayahay jumladda ugu horeyso waxa waaye I am all ears. I am all ears. Waan ku maqlayaa. I'm all ears waxa laga wadaa waan ku maqlayaa. Go ahead. I'm all ears. Warsooda waxa ay sid waan ku maqlayaa. Marka I'm all ears waxaan ka faa'iideysanay inay tahay waan ku maqlayaa. Jumladda labaad waxay tahay he is a black sheep. He is a black sheep. He's a black sheep wax waaye wax ma tare waaye. For example, my son wiilkii aan dhalay is a black sheep waa wax ma tare wax ma barto mana shaqeeyo. Jumlada saddexaad waxa waaye don't throw dust on my eyes. Don't throw dust on my eyes indhaha ciidda ha iga shubin. This mobile phone telefonkan is fake. Waa fake waaye waa falso. So please don't throw dust on my eyes. Indhaha ciidda ha iga shubin. Macnaha don't throw dust on my eyes. Indhaha ciidda ha iga gelinin ha igu shubin oo ciiddii la soo qaadanayo maaha ha i qayaan ayaa laga wadaa marka sidaas la soco. Jumlada afraad I know waan aqaanaa ninkaas. He is a man of few words. Waa nin hadal gaaban. Ninka inta badan hadduusan hadal badnayn oo sida macallin daahir dictionary oo kale ahayn waxaan leenahay a man of few words. Waa nin hadal gaaban. Sidoo kale waxaa jirta a woman of few words. Naag hadal gaaban. Sidoo kale waxaa jirta a man of action. qof action fuliyo kaliya inta badan hadalkiisa aan badnayn laakiin action buu sameeyaa bis waayahay jumlada afraad waxay tahay jumlada shanaad a little bird told me. A little bird told me. Shimbir yar baa ii sheegtay. Kistaas yar idiomskaas waa lagu jahwareeraa marka. A little bird told me. Shimbiri baa ii sheegtay. Shimbir yar baa ii sheegtay. Marka micnaha guud waxaa laga wadaa marka aadan rabin information aad qof ka heshay in aadan qof kale u sheegin. Tusaale ahaan waxaan leeyahay hey I heard that you are gonna marry the following week. Waxaan maqlay inaad guursanaysid isbuuc soo socda. Is that true? Run miya? Yeah, that's true. Who told you? Yaa kuu sheegay arrintaa. Markaan rabo inaan qariyo qofka ii sheegay informationkaas waxaan leeyahay a little bit told me. Shimbir yar baa ii sheegtay. Marka la soco insha Allah. Waa jumlada lixaad waxa waaye he is a red hand. Isaga waa gacan ku dhigle. Qofka dad dilay gacan ku dhigle ahaa oo criminalka ah waxaa idioms loo yaqaanaa red hand. Waa gacan ku dhigle. Jumlada toddobaad waxay tahay she is a fat cat. She is a fat cat. Waa gabar hantiila ah ama gabar lacag leh. She is a fat cat. Bisad caylan maaha. Waa she is a fat cat means gabar hanti leh. Marka I want to marry a fat girl. Gabar hanti leh rabaa inaan guursado. Jumlada toddobaad waxay tahay sideedaad hit the box. Hit the box. Siday u qoran tahay hadda hit the box haddii si toos loo fasiro ardada qaar way ku jawreerayaan waxay noqonaysaa hit the box laakiin micnaha guud hit the box haddaad meel ku maqashid waxay tahay buwaagta iska aqri wax baro hit the box inta badan waalidiinta ciyaalkooda ku canaanta hey John hit the box waayahay jumlada sagaalaad waxay tahay waa jumlad aad u muhiim badan aad lagu faa'iideysanayo I am a blue collar worker. I am a blue collar worker. Laba shaqaalaha waxaa loo kala saaraa idiomska laba a blue collar worker oo ah shaqaale muruq maalata ah oo xooggiisa ku shaqeysta maskax ma aha wax ma qoro laakiin sida xamaaliga oo kale shaqada oo dhismaha oo kale waxaa loo yaqaanaa a blue collar worker. Shaqaal oo muruq maalata ah xooggooda ku shaqeysta. Sidoo kale kuwa kale waxa waaye a white collar worker. Shaqaale oo dhar cadaan ah means shaqaale dharkooda cad
oo sida macallimiinta oo kale kuwa xafiis ka shaqeeya oo kale waxaa loo yaqaanaa a white collar worker. kuwa kale waxaa loo yaqaanaa a blue collar worker. marka blue collar workers waxaa la shaqaalaha marka xooga buruska jiida oo kale oo baawurka wada oo kale kuwa xoogooda ku shaqeysta. white collar workersna waa kuwa xirfadooda ku shaqeysta xafiisyada iyo bangiyada iyo meelahaas oo kale. So I'm a blue collar worker. aniga waxaan ahay qof xoogiisa ku shaqeysta maskax maya xoog ayaan hayaa. I'm a blue collar worker. waayahay jumlada kalena waxa waaye oo tobanaad you are a white collar worker. adiga waxaad tahay shaqaale dhar cad means shaqaale dharkiisu cad xafiis un aado waayahay. jumlada 11aad I got a bed with chickens. I got a bed with the chickens waxaa laga wadaa haddii aan si toos aan fasiro waxa waaye I got a bed sariirta ayaan la aadaa waxaan la seexdaa with the chickens doorada ama digaagta ayaan la seexdaa anugu digaagtaan la seexdaa laakiin waxaa laga wadaa ciyow ayaan seexdaa anugu qofka markii aan dugto ciyow ayaan seexdaa cishaha kadibba waan seexdaa qofka ciyow seexda oo haweenkii internet aan ku dhafreyno oo kale ama shukaansi oo kale ama si kale shaqo oo kale waxaan leenahay I got a bed with chickens. you know I got a bed with chickens ani ciyow ayaan seexdaa. waayahay waxaa ka soo horjeeda jumladan 12aad qofka haweenkii telefoon ku dhafra oo kale internet oo kale shukaansi oo kale shaqo haweeneed oo kale waxaa loo yaqaanaa a night owl. night owl ereyga owl waxaa laga wadaa asalkiisa guumeyskana waxaan ognahay haweenkii ma seexdo asugu waqti dambe ayuu seexdaa sidaas daraadeed he is a night owl baan leenahay. he is a night owl asaga haweenkii dhan ma seexdo night owl waay ninkaas. so night owl waxaa lagu tilmaami karaa qofka 6 saac haween oo jeeda night owl waay. qofkii ciyow seexanayna got a bed with chickens. waayahay my dad aabahayga jumlada 13aad my dad aabahayga is an early bird. early bird waxay ka soo horjeedaa night owl oo ah ninka haweenkii ciyow aan seexanaynin. my dad aabahayga is an early bird waa qof subaxii ciyow kala hawaay dadka inta badan beerleyda oo kale ama shaqaalaha ama kuwa qudaarta iibiya oo kale hilibka oo kale waxa waaye an early bird waaye sida early bird sababta loo dhahay wax maxaa shimbiraha ciyow ay soo kacaan dadka kale way ka soo kacaan ciyow ay soo toosaan. so ninkii subaxii shaqadiisa ciyow ay tahay waxa waaye an early bird. so my dad aabahayga is an early bird waaye nin subaxii aroortii kala hawaaye. waayahay jumlada 14aad waa jumlad aad u muhiimsan inta badan the exam imtixaanku was a piece of cake. piece of cake uu ahay meeshaan the exam imtixaanku was easy ay la mid tahay marka the exam imtixaanku was easy was simple wuu fududaa was abc just like abc ayuu ahaa. marka haddaa maqshid a piece of cake waxaa laga wadaa shaqo fudud waaye waxaas a piece of cake. inta badan filimada easy dhan ma jirto waxay adeegsanaa piece of cake. the exam was a piece of cake imtixaanku wuxuu ahaa mid aad u fudud. okay jumlada 15aad waa muhiim tanna waxaa adeegsada dadka youtuberska ah kuwa youtubeka ku shaqeysta oo kale waxa waaye markii aad videogooda aad ka heshid oo kale waxay leeyihiin give thumbs up like saar give thumbs up like saar if you liked our videogeena haddaa ka heshid give the thumbs up waxaa laga wadaa means give the thumbs up like saar. waayahay waa muhiim waad maqli doontaan inta badan. waa jumlada 16aad nobody is above the law. nobody is above the law waa jumlad iska fududan sharciga qof ka sareeya ma jirto. tusaale ahaan meelaha iskuulada oo kale meelaha maxkamadda oo kale qof waxaa adeegsada inta badan dadka sharci yaqaanka oo kale nobody is above the law qof sharciga ka sareeya ma jirto. waaye jumlada lambarka 17aad waxa waaye come to me at the drop of a hat. hadda freeska meeshaan ku baranayn waxa waaye at the drop of the hat at the drop of a hat. come to me imo immediately si dhaqsi leh ugu imo meeshaan dhihi lahaa waxaan kaloo dhihi karaa ama haddaan maqlo hey man come to me at the drop of a hat waxaa laga wadaa iyo imo si dhaqsi leh ugu imo come to me at the drop of a hat because koofi haddii la tuuro dhulka lagu tuuro ciyo way dhacaysaa marka waxaa laga wadaa immediately. inta badan aflaanta waye nobody is above the law qof sharciga ka sareeya ma jirto come to me at the drop of a hat iyo imo. waa jumlada 18aad waxa waaye waa jumlad aad u muhiim badan asna waxaan ka hadlaynaa ereyga black market maxaa laga wadaa black market
haddaan fasirno sidaas aan ku fasirno black market waxa waa suuq madow, sidaas ayaa suuq madow ah. Suuq madow waxaa laga wadaa suuq oo kotorbaanka lagu ganacsado, daroogada oo kale, waxyaabaha la soo xaday oo kale, illegal things oo kale ama illegal goods, waxyaabaha la soo xaday lagu gado ayaa jiro. Sida hadda meel kastuu ku yaalaa black market kaas. Marka hadda kaba la soo xaday oo kale, masaajida laga soo xaday oo kale, mobile haweenka dad laga dhacay oo kale, black market. Marka dad aab ka shaqeysta meeshaas waxa waaye alaabtana waa raqiis. waxaan leeyahay marka he works at the black market, asiga wuxuu ka shaqeystaa ama uu ka shaqeeyaa suuqa madow. waayahay jumlad 19aad waxa waa she's a smart cookie. Freeska meeshaan baadinayna waxa waa smart cookie. Inta badan smart cookie YouTube-yada iyo maxaa Google-ka uu ku jira. Smart cookie waxa laga wadaa qof aqli badan. He's a smart cookie waay, wiil aqli badan waay. She's a smart cookie waay, marka gawar aqli badan waay. Smart cookie asalka ereyga cookie waxa laga wadaa American waay. Biscuit ayaa laga wadaa cookie, meeshii biscuit iyo cookie leeyihiin. Marka she's a smart cookie waxa waay marka waa gabar aqli badan waay. waayahay jumlada ugu dambeysa, idiomka maanta ugu dambeysa oo 2aad waxa waay you hit the nail on the head. You hit the nail on the head. Isha ayaad ka toogatay. Qofaa su'aal weydiiday waxaa leedahay 5 lagu daray 5 waa imisa? Wuxuu ku yiri 10 macallinow. Markaasaan leedahay good, you hit the nail on the head. Isha ayaad ka riday waa sax. Means you hit the nail on the head. Haddaan sheegno aan qulaaseno waa saxan tahay ayaa laga wadaa. Means you are correct. Meeshii you are correct aan dhihi lahaa you hit the nail on the head. Marka asxaabay saan u jeedaan waxaan qaadanay 20 idioms ah oo American movie idioms ah. Marka insha Allah cashir kadib waxaan idin soo doori doonaa iska dhageysta, waxaan idin soo doori doonaa 10 sida caadiga ah oo kale kadib waa sheegi doontaan insha Allah exercise.